xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo fadhigiisu yahay xayndaabka xalane ayaa u muuqda in si ku meel gaar ah uu ula wareegay awoodii hogaaminta siyaasadeed ee Soomaaliya. xafiisku waxa uu xayndaabka xalane maanta isugu geeyay safiirada beesha caalamka ee ka socda wadamada saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya iyo dhinacyada mucaaradka. waxaana xafiiska qaramada midoobay ee xayndaabka xalane uu si toos ah u qaatay go'aanka in isagu uu hogaamiyo howlaha la xiriira waqtiga kala guurka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaabka loogu heshiin karo nooca doorasho ee dalka ka dhici karta iyo xilliga ay dhacayso. xubnaha safiiradan beesha caalamka ayaa dhageystay warbixinada ay soo jeediyeen siyaasadaha safaaradda Mareykanka iyo safiirka Ingiriiska oo maalmihii la soo dhaafay dhexdhexaadiyay Xasan Sheekh Maxamuud Culusow madaxweynaha sharci darrada ku fadhiya Villa Soomaaliya iyo sidoo kale dhinacyada mucaaradka. waxaa sidoo kale kulanka ka qayb galay madasha mustaqbalka iyadoo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay qaab online ah uga qayb galayeen kulanka isla markaana ay halkaas ka jeediyeen hadallo kala duwan. sidoo kale dhinacyo matalayay madasha mustaqbalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin musharaxiinta Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Cabdulqaadir Cosoble ayaa si toos ah qayb uga ahaa, taasoo muujinaysa sida dhinacyadu ay u daneynayeen kulanka. kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loogu qancin lahaa mucaaradka inay qayb ka noqdaan wada hadallo kale oo mar kale la isugu geynayo iyaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud Culusow madaxweynaha sharci darrada ku jooga Villa Soomaaliya. xubnaha beesha caalamka ayaa waxa ay qireen in Xasan Sheekh waqtigiisa uu dhammaaday Villa Soomaaliya oo hadda uu fadhiyana ay tahay mid sharci darro ah. waxay u xaqiijiyeen mucaaradka inaysan u aqoonsanayn madaxweyne sharci ah oo markii ugu dambeysay midowga Yurub kulankii ay la sameeyeen aysan ku dhawaaqin inuu yahay madaxweyne toosa. taas ayaana waxa ay si cad bannaanka u muujinaysaa in aysan beesha caalamku markan danaynayn hadallada iyo sidoo kale tillaabooyinka boor isku qarinta ah ee Xasan Sheekh Maxamuud Culusow. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la sheegay kulanka isagoo qaab online uga qayb galaya inuu jeediyay hadalkii ugu adkaa ee ka yimaada dhinaca mucaaradka. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu si toos ah u dalbaday in beesha caalamku ay qaadaan go'aano iyo tillaabooyin hoos loogu dhigayo maqaamka Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana lagu muujinayo in awoodiisii iyo sharciyadiisiiba ay dhammaatay. sidoo kale waxa uu sheegay in aan la isku aamini karin in mar dambe la tago magaalada Muqdisho fadhiyada xiga iyo wixii dambe ee shir ayuu dalbaday inay ka dhacaan caasimadaha dowlad goboleedyada meeshii la isla garto amaba la isla tago dalka banaankiisa oo Nairobi, Kampala ama Addis Ababa si toos ah loogu kulmi karo, isagoo sheegay in qashqashaado ka dhan ah amnigiisa lagu sameeyay intii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho isla markaana uu dareemayay ciriiri dhanka ammaanka. waxaasna wuxuu ku eedeeyay inuu ka dambeeyay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee sharci darrada hadda ku jooga. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa u muuqda in beesha caalamka uu hordhigay arrin aad u adag oo ay sheegeen in tillaabooyin ay qaadayaan. xubnahan ayaa dhankooda ku adkaystay in marka hore ay tixgelinayaan wada hadallada iyo in la wada fariisto, balse bilaha ugu soo aadan si toos ah ay u qaadi doonaan tillaabooyin adag oo cunaqabatayn lagu saarayo Xasan Sheekh Maxamuud Culusow haddii uu diido waxa lagu heshiiyo in la fuliyo, taasoo ka dhigan in dhowaan Xasan Sheekh uu sugayo cunaqabatayno dhanka dhaqaalaha, safarka iyo qoyskiisaba saameyn doona.